بسم الله كسر dhawaada janaalka Zaahir Maxamed waa anigu waa Zaahir caawa waxaan qaadnaa cashirkeena tobanaad qaybtiisa cashirka sagaalaad ayaan ku soo qaadanay mawduucan CPI-da iyo GDP deflatorka iyo inflationka waxyaabaha ka dhaxeeya iyo wax midooba wuxuu yahay shalad maalin cashirkii sagaalaad waxaan ku soo qaadanay qaybta koowaad hadda waxaan rabaa qaybta labaad inaan ka hadalno qaybta hore wuxuu ka hadlayaa CPI qaybtan hadda waxaan rabnaa inaan xoogaa ka hadlo GDP deflator iyo farqi u dhexeeya CPI-da GDP deflator sida meesha nooga qoro definitionka GDP deflator maxaa la lahaa badanaa wuxuu qiimeeyaa ama cabiraa waa qiimaha oo dhammaan shayada iyo adeegyada la soo saaro kaasoo ah kordhinayo by fees macnaa badanaa waxyaalaha ay gataan goodiska badanaa ay gataan shirkadaha iyo governmentiyo kuwaas oo ujeedku yahay in domestically productionka wax lagu soo saaro marka GDP deflatorka wuxuu leeyahay GDP deflatorka qaacidadiisa waa kana formula waa nominalkan oo loo qeybiye real GDP waxaa fila casharka nominal GDP iyo real GDP inaa casharkaas hore usoo qaadanay baliis haddii aa kugu cusub yahay casharkeena dib u laabo kadibna waa helaysaa xafila casharka afraad noo yahay marka waxaa lagu helaa nominal GDP badanaa waxaa waaye haddii dib lagu celiyo waa current year waaye current year macnaha sanadkaas markaas la taagan yahay baraaskiisa iyo quantitygiisa laakiin realka waxaa waaye waa base year waaye oo ah reference year sanadkii oo markaas uu ah dadka badankood macnaha sida caadiga national accountiga wuxuu qabaa in shan sano kadib in mar oo base yearka la bedelo dadka qaarkoodna waxay sameeyaan 1 year oo kale wadamada horumarna badanaa oo Europeanka waxay isticmaalaan waa chain linking waxa la dhahaa jiro oo ah in oo automatically every year in oo real GDP mar walba isbedelo okay marka waa nominalka GDP oo loo qeybiyo real GDP oo lagu dhufto 100 ayaa waxa lagu helaa deflatorkana waxaa dhahnay waa price-ka oo qaabilsan goodiska iyo service-ka kuwaas oo badanaa isticmaalaan shirkadaha iyo dowladda oo ah waana ujeedku macnaha waxaa waaye waa domestical waaye macnaha waxyaalaha oo dalka lagu isticmaalo badanaa lagu sameeyo waaye marka qiimahaas raba in marka uu measure gareynaa oo ogaana waxa bal item wuxuu yahay tusaale ahaan oo kale kasoo qaad oo kale wadankan inuu yahay inuu soo saaro laba shay oo ah suqaana oo kale orange iyo wuxuu soo saara iska dheh orange iyo apple okay applekaas orangeaas oo nominal waxaa loo qeybinaa oranjaha iyo appleka oo real markaas waxaa lagu dhufanaa 100 kadib waxaa kusoo baxaa qiimihii quantity isku dhufanay qiimihii quantitygiisa waa wataa kana qiimihii quantity isku wata soo kale waa 5 plus 5 10 waaye kana waa 3 plus 3 meeqa noqonay 10 loo qeybiyo 6 wixii soo baxo kadib 100 ku dhufo kadib waxaa kusoo baxaa GDP deflator price-ka oo good haddii per item xisaabinaysa oo logic wana xisaabinay every item waxaa ogaanaysaa price-kiisa change ku dhaca okay ha imaana farqiga u dhexeeya GDP deflator and CPI difference maxaa u dhexeeya inaa ogaano laba qodob aan rabnaa inaan ka hadalno bas qodob kale waa jiraan laakiin labadan qodob aan rabnaa inaan kusoo koobno qodobka koowaad waxaa waaye coverka ay ku dumiyihiin macnaa cover differences of goods and service tusaale ahaan oo kale waxay ku duwan yihiin CPI-da price-kiisa oo badanaa waxay matashaa waa basket waaye of
goods and services purchased by consumer. macnaha CPI-da badanaa waxay kaliya coverkeedu ku ogyahay ama basketkeeda horaa ugu soo hadalnay. basket waxaa la lahaa wadankaas wuxuu consume gareeyo mostly in laisku geeyo itemkaas kaliya janjigiis la fiiriyo oo laisku geeyo kadib waa CPI laga sameeyaa. marka kaliya wuxuu fiiriyaa purchases by consumerka waxay consumption gareeyaan, macnaha waxay la isticmaalaan kaliya u fiirnaa macnaha markii laga hadlaya CPI. laakiin GDP deflatorka waa price of all newly domestically produced final goods and services. waxyaalaha oo dadka supplier waa badanaa macnaha dimanka waa badanaa day economic ahaan of dimanka waxaa badanaa waa CPI waaye. dadka waxay diman garayaan consume garaynayaan, laakiin supply waxaa waaye dadka wax soo bandhigaya production side waaye. production side ka badanaa price-kooda waxyaalaha la xiriira final goods service-ka isticmaalaa lagu qiimeeyaa. okay, qaybta labaad waxaa waaye they are constructed differently. maxaa waaye macnaha qaab ismeedkaba kala duwan. tusaale ahaan kale CPI-da wuxuu isticmaalaa waa fixed basket waa. tusaale ahaan kale macnaha qoysaska badanaa waxay cunaan waxay consume garaan wax oo same ah, macnaha maalin walba wax cusub inay isticmaalaan way yar tahay. macnaha wadankaas waxyaalaha laga consume gareeyo wuu xadidan yahay. badanaa wixii qudaar ah, wixii oo shay electronic ah, wixii oo service ah, wixii goodies ah, badanaa wuu kooban yahay, waa fixed waa. tusaale ahaan wadankan wuxuu leeyahay wadamo qaar waxay leeyihiin 1000 oo kale 1000 item ay leeyihiin, wadamo qaar 800, wadamo qaar 5000. wadanka baaxadiis iyo ku xiranta dhaqaalihiisa ku xirantahay. wadamada afrikaanka kale 500 meelaas waaye, Soomaaliya kale 410 meelaas waaye. marka itemadaas marka waxa ah fixed basket oo macnaha waa kooban yahay, bil walba wixii lagu soo celinaa macnaha marab la meesha kareyna. laakiin markii basket tahay GDP deflatorka waa changes isbedelaa marwalba isbedelaa. waxaa laga yaabaa in marabkan oo la isticmaalo shirkadaha isticmaal wax cusub kale inay kusoo kordhiyaan isticmaalaan. marka marba wixii oo markaas oo la consume gareeyo aan soo qaadanaa. labadaas way kula duwan yihiin. casharkeena marka intaana ku ogyahay waxaa noo dhiman qaybta inflationka si ay labadooda ugu xiriiraan inaan ka hadalno. macnaha hadda waxaan ka hadalnay waa index, waa inaan ogaano measurement of price. laakiin se markaan rabno converting to inflation markaan rabno inaan u bedelno maxaa isticmaalnaa iyo say tahay iyo waxaasna inaan ogaana rabnaa. marka casharka dambe qaybta saddexaad uu leeyahay. qaybta saddexaad rabaa marka inaan inflationka aan kaga hadlo. please haddii su-aal qabto just committee igala soo hadlan, haddii fahamtana waa okay. marka intaan kutusimaa waa inuu mar kale insha allah.